muqdisho ku yeesheen waxgaradka iyo dhalinyarada ka soo jeeda Somaliland isla markaana ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ay si weyn kaga hor yimaadeen Bob ay sheegeen in uu kuraastooda ku wado ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. kulankan oo lagu eedeynayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed ayaa waxa looga hadlay arrimo ku saabsan in uu boobay doorashada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya siyaasiyiinta iska leh ee Somaliland. kulanka ayaa waxa looga dalbaday ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble inuu wax ka qabto boobka uu ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ku hayo doorashada labada gole ee reer waqooyiga. sidoo kale kulankan ayaa markaasi lagu dalbaday isla markaana looga dalbaday waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ee ka soo jeeda Somaliland inay ka soo qayb galaan banaanbax arintaasi looga soo horjeedo. haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadaas oo warbaahinta la hadlay. waxaynu ogeyn ra'iisul wasaare Mahdi Guuleed 2005 up to 2009 inuu u heelanaa kala goynta dalka iyo qaybinta ummadii iyo qarankii Soomaaliyeed ee 1960kii dadkiisu isu yimaadeen oo ay dhagax dhigteen. markii uu ka dhamaaday nidaamkaasi oo aynu ogeyn inuu ka mid ahaa xubnihii guddiga doorashada ee khilaafka ba'an ka dhaliyay gobolada Somaliland ee ilaa ay gaadhay marka kaliya ee dadka reer Somaliland soo dhex galeen beesha caalamku inuu ka mid ahaa. waqtigaa wixii ka dambeeyay Mahdi Guuleed wuxuu u kaba qaatay nidaamkii fashisamka ahaa ee ka geystay dambiyada caalamiga ah gobolka Ogaadeniya ama dhulka loo yaqaan reserve area Ogaadeniya. markii nidaamkaasina ka soo dhamaaday ra'iisul wasaare Mahdi Guuleed isagoo duulaan ku ah qarannimada Soomaaliya waxa uu soo caga dhigtay magaalada Muqdisho wuxuuna la jaan qaaday rejiimka cusub ee madaxweyne Farmaajo hogaamiye ee dalka iyo dalka Soomaaliyeed ba ku niyad jabeen ee muddadan ay u hanqal taagayeen. waxaynu ogeyn ra'iisul wasaare ku-xigeenku inuu ka mid ahaa dambiyadii ay geysatay xukuumaddii maamulka jira ee Farmaajo hadday noqoto dambiyadii caalamiga ahaa ee ka dhacay Baydhaba kuwii boobkii doorasho ee ka dhacay Galmudug. wuxuuna gole walba iyo madal walba oo siyaasadeed la taagnaan jiray hadal xanafa oo kala qaybinaya ummadda iyadoo intaasoo dhan dadka Soomaaliyeed ku soo samreen oo ay ugu soo dul qaateen muddadii 30 sano ahayd ay hayaanka ugu jireen inay helaan qaran dhammaystiran oo ay u dhan yihiin. markii uu dhamaaday xukunkii Farmaajo ee la gaaray waqtigii doorashada waxa uu ra'iisul wasaare Mahdi Guuleed ka mid ahaa dadkii bartanka ugu jiray inuu dhasho khilaafka doorashooyinka ee muddada sanadka soo jitamayay. waxaynu ogeyn ra'iisul wasaare Mahdi Guuleed inuu ahaa dadkii ugu badnaa ee keenay guddidii lagu muransanaa muddada dheer ee gelisay xaalad aan dadka Soomaaliyeed jeclaysan oo halis u gashay in lagu noqdo 1991kii. markii inta laga soo gurmay oo dadkii Soomaaliyeed u kaceen oo ciidamada qalabka sida soo galeen Muqdisho oo mucaarad iyo shacab la iska ashaday markii laga saaray guddidii khilaafku inta badan jiray Mahdi Guuleed wuxuu dib ugu noqday bilaacadiisii oo ah inuu dhurto haddana kuraastii oo uu boobo oo ergo xaaraana oo aan lahayn kuraasta uu ku xirayso SYL oo maalinba ay kursi u soo saarto. waxaynu ognahay in ka badan 6 kursi uu boobay muddadii ay doorashadu socotay iyadoo uu isagoo duulaan ku noqday commissionkii iyo maxkamaddii sare qarankuba lahaa. haddaba iyadoo ay noo muuqatay ifafaale aan wanaagsanayn oo ku socda nidaamka doorasho ee dadka reer Somaliland ee la yiri Muqdisho ay matalaad ku leeyihiin. waxaan ra'iisul wasaaraha ka codsanaynaa mudan ra'iisul wasaare xukuumadda Farmaajo oo ku sifowday in la isku dulmiyo awoodda iyo qarannimada waxaad nagaga tagtay bilaacadii uu ra'iisul wasaare Mahdi Guuleed dhuranayay miyaadna sii muquurinaysaa mise waad naga soo dhex saaraysaayo waxaanu noqon doonaa dal iyo dad ka tirsan dhulka Soomaaliyeed. haddaba waxaan kaloo maanta ilaa xalay socday abaabul ka dhan ah dawladnimada nidaamka iyo kala dambeynta. barakaatu mudan iyo marweyn meeshan waxaan isugu nimay shirkayguna uu ku daaran yahay inaanu ka hortagno waxa weeye dadka qowleysatada ah ee waxa weeye dalka baabinaya ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. waxaan ku codsanaynaa annagoo hogaansanaynaa guusha iyo horumarku dalka gaarsiinayo inuu naga qabto qowleyste
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed oo boob dhac ergooyinku boobayo uu kula kacayo ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa awrka ugu weyn dalka hadduu waxa weeye saabunta cuno waa dhibaato marka waxaan u sheegaynaa ra-iisul wasaaraha inuu waxa weeye dawladda siduu waxa weeye ugu baaqay inuu amnigeeda doorashadeeda cadaalad u sameeyo inuu cadaalad u sameeyo inuu naga qabto ninkaana xilkana ka mustaafriyo sidaa daraadeed maadaama halkan isku nime annagoo dhalinyaradii Soomaaliland ee gobolka Banaadir waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha inuu cadaalad u soo jeesto inuu cadaalad eego inuu dalka loo sinaato haweenka Soomaaliland hadaan nahay waxaan ra'iisul wasaaraha ku dhiirigelinaynaa inuu naga qabto Mahdi Guuleed cadaaladana dib u eego ugu dambeyntii waxaa kulankan soo gabagabeeyay gudoomiyaha ee ururka midnimadoonka gobolada waqooyi ee Soomaaliland Sakariya Nuur Saajin waxa uu na fariin u diray ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale bulshada ka soo jeeda Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxa shirkan jirayd maanta uu daaran yahay bulshada halka iskugu timi bulshada rayidka reer Soomaaliland ee ku dhaqan gobolka Banaadir waxa uu daaran yahay shirkani xalayto waqti dambe saynu la soconay waxa shir jirayd ku qabtay hotelka SWL ergadii gafuurka xidhnayd kuraasta dhammaan kuraastii la dhacay ama la boobay Somaliland ka codeeyay ergada ka ahaa runtii xaqu wax la qariyaba feeruhu ka dilaaca waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa oo aan u sheegaynaa bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir runtii dulmanayaasha madluumiinta ah dushooda lagu boobay kuraastii Somaliland ay ku lahayd golayaasha dawladda federaalka Soomaaliya maanta inay hadleen iyaga oo ku baaqay inay qaban doonaan isla maanta shir jaraa'id ay kaga soo horjeedaan banaanbaxa isla markaana ay ku taageerayaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo runtii isagu ah qofka u sababta ah dhibka khilaafka ka dhacay ama ku yimisi khalkhalka geliyay siyaasadda Soomaaliya oo aanu ku baaqnay isla markaana aanu isbuuca gudihiisa mudaharaad al-tahriiri ah aanu ku qaban doono gobolka Banaadir anaga oo shalayto saad la socoteenba midaynay gudiyadii abaabulka mudaharaadka haddaba waxaan dadka u sheegaynaa aan Soomaaliya u cadeynaynaa dadka u baaqayaan ee masaakiinta waxaan horta uga digaynaa in aanay raggii dambiilayaasha odayaashii xaaraanta ahaa ee aan cuqaasha ahayn saxda ah ee boobay kuraasta isu xalaaleeyay iyo ergadii afka duubnayd kuwii Mahdi Guuleed u xalaaleeyay u codeeyay kursiga aanu lahayn beeshiisu ayaa ay weeyaan dadkaasi waxaana dad inta kale aan la midka ahayn ee ergadaas aan ka mid ahayn gafuurka xidhan qaadanina iyaan leydin gacan haadin qof kasta oo ka qayb qaata shirkaas maanta lagu baaqayna dambiilu noqonaya dadka dawladda iyo deegaankaba aanadoodu oo calaamadsan tahay waxaana cadaatay oo muuqanaysa maanta gafuurka ma xidhnidin laakiin waxaad ilaashanaysaan baaqiga iyo hambada hadhay kuraasta reer Somaliland